يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. ثم ما بعد كلمتنا لا حديدا عدة عيدا إلهي يا رسولك وأنا عايلها رنتي يا إسلامك وحا وكيل أما حكم كيسة يا حير عقاباتك قفك سويالنا iyo dembigaasi qarada uu leeyahay iyo diinteena waxa ay ka tiribayeen wax ka oran doona insha Allah ta'ala. marka hore rasuulkeenu sallallahu alayhi wasallam sidaynu ogsoonahay waxa uu kaga jiraa shahaadada qaybta dambe jacaylkiisuna iimaanku kamid ahaa qofkuna haduu shay caayo shay cid uu jecel yahay ma caayo macnaheedu waxa weeye cidda uu qofku caayo waa cid uu nacay ويعيد جعلي عاي ومقوله برضو الرسول كان عينا دينتي إسلام كي الشهادة دي بو معي عيد إله العالي سبحانه تكاد السماوات يتفضلن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال وهذا أن دعوا للرحمن ولدا وحلقوا شيئا هدي إلهي أي قالوا إلى هذا ولد كل كل شيئا باليري قوم أي كهل لين وحي سماوات كل وادين إلى الدلعان الرجل وحي كل واتين القعده أن دعوا للرحمن ولد إن إلهي ولد كل شيء أو يلاهدين وقفوا لا أي يلاهدين مركا هدي اللي يركو يدلكو وحي لبابا أيان هدي إلهي قال ولد كل شيء أي العيان وحكسي وين وحكسي وين واحد جرتي وقت النبي عليه الصلاة والسلام مركو كجري دقالكي تبوك ayaa nin munaafiqiinta kamid ahaa oo markaa intoodii badnayd way hareena isagu meesha marayay baacayay nabiga iyo asxaabta erayuu ku dhawaaqay isagoo leh ma ra'aytu mithla haula'i mithla qurra'ina haula'i arghabu butunan ma ra'aytu mithla haula'i arghabu butunan wala akdhaba alsunan wala ajbana 'inda al-liqa' ما نرجع من كان نبي جاي أنت لا صعطة قارك هنجوري وين مرك حاجة على وش النقط قارك هذا الحنوة كبين بدن يا قارك فليسن مرك الرجل كل ما من أصحاب تكمل هذا مقليي ومركو السلاو عاي رسول كي أصحابته عوف بن مالك بعد جاي سنة ينكها كدبنا نقول هذا يوم عفنيكي بالله الله وحده والله منافق بات بأن نوات شكته منافق نوات يقول وركاجنا النبي قالوا شيء عليه الصلاة والسلام كدبنا وركي النبي قارسيي مركي لو يدينا وحده ده كفتن باهي طريق دير بقى لو جريو طريق آسان اسكو دافينين وان بددالدي ما وحو كو كان هاساوه iyo badadaaladii dhaxdayadu ku soo waariday uu khaldamay sheeka iska ahayd ma ahayn ay aan kula qastiyay nabi Allah
marka waa de kaftankiibu uu qaldamay ilaahay baa qur'aan soo dejiyay qul abillaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ilaahay baa wuxuu yidhi ma ilaahay iyo aayadihiisa iyo rasuulkiisa ayaa ku dheeldheelaysa waa gaalowdeena waxbaa cudurdaaranin qad kafartum bacda iimaanikum inta shahaadateen kadib gaalnimo u baxdeen marka aayaddu waxay cadaysay ila ninkani wuxuu markaa ilaahay mabuucaayna wuxuu caayay rasuulkii asxaabta marka caayidii rasuulka ayaa waxay noqotay inuu ilaahay caayay subxaanahu wa tacaala halkaa waxay aayaddu ku cadaysay dhab iyo dheeldheelba xataa kaftamaya qofka waxaa dacaayadeynaya ha iska jeesjeesaya sida dadkeenu kana yidhaahdaan waa alla kood oo hadallunbuu iska tuurtuuraa inuu ku gaaloobayo qofku ayaa culimmada islaamka ee mufasiriintu sida ay sharxayaan ay ka waramayaan imaamu alqutubi raximahullah markuu sharxaya aayadda waxa uu leeyahy laa yakhluu an yakuuna maa qaaluuhu min dalika jiddan haazilan wa kayfa maa kaana kafara ama dhab ha ahaato ama dheeldheel ha ahaatee labada jeerba ereyga gaalnimada ah qofku islaamka uu kaga baxayaa taas waxa weeyaan qofkii muslimka sheeganayay oo nabiga caaya calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay caaya oo diinta caaya walow kaftan ba ahaato halkaasaa qad kafartum bacda iimaanikum buu lahay kii muslimka ahaa ciduu doonaya ha ahaade waad gaalowday baa ilahay waxa yimi qofkii isagu gaalka ahaa muslimiintu ballanka la lahaayeen isagana aayad baa ku soo degtayoo ilaahay waa ka jawaabay alla wuxuu yidhi wain nakathuu aymaanahum min bacdi cahdihim waطacanuu fii diinikum faqaatiluu a'immata alkufri inahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuun waa nimankii ballantii cahdiga lala lahaa hadday ballantii jabiyaan waطacanuu fii diinikum diintiinnana ay dacni ku sameeyaan ay duraan ilaahay buu caayay rasuulka diinta la dagaalam buu ilaahay wuxuu leeyahay la dagaalama markaa waa madaxdii gaalada iimaan iyo aymaantoona male iimaan ma laha aymaan iyo ballanna ma laha ilaa intay ka joogsanayaan ballankoodii wuu buray markaana aayaddaas waxay caddaysay ciddii caqad iyo heshiis lala lahaa ama maganba ahaa hadday ilaahay iyo rasuulkii caayayaan iyagana magantoodii way jabtay magantoodii martidoodii cahdigoodii waa buray waayo shaygii alkhad alaxmar khadkii casaay lama taabtaanka ahaa iyo wixii markaa qadaasadii iyo hufnaanta lahaa kol hadday dhowri waayeen oo ay ku tunteen si cad ilaahay aayadda wuxuu u sheegay inay tahay arintaasi ballantiioo jabtay waxa markaa sidaa ku fasiraya culimada tafsiirka ibnu kathiir oo kale markuu fasiraya wadacanuu fii diinikum diintiina hadday duraan waxa uu ku fasirayaa cidda rasuulka cayda diinta cayda ilaahay cayda ayuu ku fasirayaa dacnigaas waqtigii nebi maxamed joogay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aadee dee dad baa dhacdhacan iyo dhataqlanimadan iyo afxumadani ay ka dhici jirtay noocyo kala duwan leh marka haddii aynu iyagana qisaskoodii soo qaadano 5 qiso aynu soo qaadan doonaa qisada u horeysa waa qisadii ninkii la oran jiray Kacb ibn al-Ashraf nin kibray buu ahaayo carabta kamid ah mar walba wax kibra oo ilaahay rasuulka ka hor yimaada lama waayo ninka isaga ahay nabigu afka ka dhigi waayay calayhi salaatu wasalaam aad buu caayi jiray rasuulku sallallahu alayhi wasallam asxaabtii uu la hadlayo wuxuu warnaa ninka ah saa lagu sii eegan kari maayo ilaahay rasuulka caaye kuma u baxaya nin ku munaasib ahaa geesi ahaa fariid ahaa farsamo badnaa Muhammad ibn Maslama leeyay Muhammad ibn Maslama la oran jiray asxaabiga ayaa yiri aniga miyaan soo dilaa ha aniga igu ducee buurka aniga ku quusanaya kadibna laakiin daa wuxuu yiri waxaan u baahanahay waxyaabaan ku marmarsoodo waxaad ii ogolaataa buur in adiga wax ka sheego si aan isaga kalsooni uga kasban karo waa farsamo oo macnaha aan ku yara duri karo wax ka sheegi karo waaye ka socod waa ku fasaxay kala day xidaaraysi iyo farsamo u tahay ninkii uu sii socdaan istiqaanan Muhammad
maxamed ibnu maslame iyo ninkaa gaalka kacbul ashraf looran jirayna way siiqaaneen ninkiiba u tagay kadibna wuxuu yiri waniyo ninkii oday ninkii aanu la joognay wuxuuna weydiinaya sadaqa iyo wax anagina waxba ma hayno marka waxaan kuugu imi bal inaad xoogaa awr ama laba awr oo raashina ama hayso uu qoslayo wuxuu yiri ma sidaas ay u dhacday waan ogahay buu ka waliba uu disii cuslayn doonaa buu way ka sii daray buu waliba bay horta de arrinkiisaanu yara eegaynaayo de ilaa intuu soo oodmayo waanu iskala sii wadaynaa waxba ka degdegi meynee barta teenan inoo dhamee de way rahan baan ka doonayaa buu kalsooni maxaan rahan kaaga dhignaa buu de qaar dumar ay keen buu waa ninkii breewi dumarkiina de qaar rahan iga dhig waxaan meesha ninkii carab u fiicnaaba tahay ceeb bay kugu tahay islaam buu ayuu rahan u haystaa taay naga daa way hadaba caruurta keen buu qaar caruura keen labada awre raashinka ah aan rahan u sii haysto taasina waa de caruurta ceeb ku tahay buu waxa la oran doonaa berito waa ilmihii loo rahmay labada awre raashinka ah marka taanay naga daa maxaad hadaa rahan ka dhigay hub baan ku keenay buu hubkaasa wanaagsanay ma hubka ay keen buu asilaax goormaynu ballanaayo caawa haynoo haatay caawadii buu soo guura galay isagoo wata nin kale oo si uu kalsoonidiisa u sii hagaajiyo si uu kalsoonaado ay isaga xagga hooyo kan la doonayo in la dilo xagga hooyo ay ka walaalayihiin abu naa'ila la oranay iyo laba nin oo kale oo inay saaxiibo yihiin oo muujinayo hubkan uu u muujinayo inuu rahan uga dhigayaana waa hubkii ay ku dilayeen way soo socdeen habeennimadii baa qalkii ku garaaco waa kuma waa maxamed ibn maslam ooridiisii baa ninkan gaalka la hadasho waxay tiri war waqtigan lama baxee iska joog wuxuu yiri waa ninkii odayga ahaa mustaqaanay yimid maxamed ibn maslama la oran jiro deegaasigu hadda ayo kale uu iska daadega wala hoola tomaatiye gobanimo ma ahayna de aqalkuun hoosta ka soo xidhata wallahi codkaaga geeri baan ka arkayaa bay gabadh cajiiba bay haydo codkaagaas geeri baa iga muuqata sidii buu ku daadagayo de maxamedna khad buu soo dajiyay qoladan la socoto wuxuu yiri ninka saasan sameeynaya marka aan ku dhaga uun khaarijiye ninkii oo aad isu soo cadareeyay oo aad u soo kankamayo udgoon oo markaasuu maxamed ku war aad baabad udgoon tahay bal madaxaaga aan yara ursado allah maxaa cadar ka soo uraya rasuul de carabtii u cajaayibsanayd baan qabaa ooridii carab ugu cajaayibsanayd ugu cadar badnayd baan qabaa sidaa daraadeed baan udgoonkan u helay bal ursi madaxo markuu ku dhagay mar labaad haddana uu aad u qabtay madaxiisii intuu saa ursaday ayay nimankii kale ag taagnaan hubkii looga dhigayay rahan uu yahay ayaa dhakada lagu jaray warkiisii wuu dhammaaday saasay nabiga ugu bashaareeyeen calayhi salaatu wasalaam marka ninka de ciqaabtiisii nabigu wuxuu ka dhigay in uu wadada ka duwo ama ummadda ka hor qaado qisada kale waxa warinaya barabnu caazib iyana waa saxiix nin baa jira yahuudda ka mid ahaa oo la odhan jiray abu raafic baa la odhan jiray alyahuudi ninkaasi ilaahay buu caayi jiray si gaarana rasuulku u sii caayi jiray calayhi salaatu wasalaam dacaayada afxumada ceebaynta waxaas u wadi jiray marka sidoo kale kooxan saarta ka mid ah ayuu nabigu u diray oo uu hogaaminayay asxaabigii la odhan jiray cabdillaahi ibnu catiik way socdeenoo goor fiida ayay hortaageen qalcad weyn buu ku lahaa xijaas dhexdeeda gurigiisii bay hortaageen fiidkii nimankii kale markaa kooxda ahay la socday dib u joogsada buu isaga intuu mara yara hagoogtay markii xoolaha lagu xareeyay qalcadda weyn ee dadkii ay sii galayeen ayuu albaabka yara hagoogtay sidii wax kaajayo kale kii geedkiibarka ama waashmaankiiba la hadlay wuxuu ninka qofka halkaa fadhiyo albaabka waan xirayaa dhaqso u soo dhaaf wuxuu moodayaa dadkii guriga isagiina fursadii buu ka faa'iideystay oo soo galay meel buu isku yara laabay oo ninkii waashmaanka ahaa markuu meelihii wada xidhxidhay ayuu qori yar suray furayaashii buu qaatay kolba albaab buu ku eegay wuu furay dhowr albaab buu furo kor buu sii baxay albaab walbana hoostu ka soo xidhaya waqtiga uu galayaana waa markii la kala seexday markii uu isli meeshii ninkii hurday baad gaadhay la doondoonaya abu raafic la odhanaya ayaa wuxuu war abu raafic war waa kuma buuri ka meesha soo galay aqalkuna waa madow oo de waa nin isqarinaya marka horeba
halkii codkiisu uu ka baxay buu kula hagaagay oo seef buu ku dhuftay mar labaad mar saddexaad adigu uu ka bogtay markuu khaarajiyay buu daadegay oo hoos buu dhaadhacay cajiiba buu ahaado adigu markii salaamadii ugu horeeyay uu maraya Cabdilaahi ayuu meel ka dhaco lugtu ka jabay iyaba waa cajaa'ib waa imtixaan kale haddana isagoo lugtaa ka jaban ayaa cumaamadiisii buu qaaday oo uu ku duubay ilaa waa nin hadaf buu socdaa dabqasho male kanun baaba ka nabiga caayun baaba damqaye cagtiisan jabtayba may damqayn uu ku duuduubo wuxuu wallaahi ilaa ninka geeridiisa la muujiyo oo la sheego kaba tagi maayo halka markii waagu soo bariyay ayaa sidii carabta dhaqankeedu ahaa nacyi waxa la yiraahdo ay sameyn jireen nin baa dhawaaqayo ogeysiiska geeridu bixinaya yanca bimawti abi raafi ninkii abi raafi geeridiisiiba ogeysiis xaafadii deegaanka ayuu sida salaad loo daakiro kale loo adaamo ayuu ku yeedhiyay markiiba kooxdiisii kale u yeedhayo halkiiba la tukubiyeeyo sidii baa nabiga loogu tagay calayhi salaatu wasalaam markii dilkiisii ay soo hubsadeen ay ugu bushaareeyeen rasuulka nabigu wuxuu balcagtaada ay tusi saasun buu masaxay خلاص وأيضا ولقيت بوحوات عبانين ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم هذا الجدنا نكا وحي مركة طلابة داسنا مدو الرسول قاضي بهي سلوغا نستنكا قال كاها عاي النبي عليه الصلاة والسلام قصة صدحادو هي نين أصحابته كم إذا باتشروا يسقون عند لا نكا سوحو قبي وحو هوس جوجتي حاسو أهيد أضون ولها laba inanoo aad u qurux badan bay u dhashay oo isagu uu ku tilmaamay inay la mid ahaayeen laba lu'lu'o jawharto kale inay sida jawharta u cadaayeen nabigu bay caay jirtay habarta adoonti wallah hadlaa wuxuu raada ka daa rasuulka caay markuu muddo ku celcelinayay habeenkii dambe ayay caayday naahoy ka daa nabiga caay nabiga agtayda ku caay markii ay deen weyday buu golxab ama tooridan weyn halkan rag u gashadaan ayuu soo qaatay oo dabeetana markay jiifsatay buu ku ruqaansaday laba u kala jaray ciyaalkii mid kamid ah qaylqayliyo dhiigeedii buu dhax galay subaxdiiba dhinacaas isaga daqamo uu ka tagay ka luuday subaxdii baa la soo sheegay halkan in gabadh lagu dilay ilmaheedii yaraana uu ag joogo wada dhiiga nabigu asxaabtii buu aad u abhiyay oo baariyay oo xaq uu ku leeyahay uu sheegay oo ninkii dilka geystay soo bax ninkii indhaha la uu soo kacayo nabigu xaqiisa u soo hangabsaday markaas uu tusoo wal hor fariisiyay wuxuu horta iga dhageysa hadalkan oo gabadhan iyada ah aniga wax dhibina ma dhaxmarin buu si gaar ah shakhsiyadayda way jeclayd buuri laba inaan oo nooca qurux badanna way ilahayd laakiin afku bay ka dhigay way ku caay jirtay in badan markii aan abiyay deyn weyday aniga sida u khaarajiyay nabigu calayhi salaatu wasalaam dhiigeedii hadur buu ka dhigay oo waxa uu ala ishhadu anna damaha hadar waxa ogaataan oo marxaati ka noqotaan dhiigeeduna hadur yahay taasina qisa dhacday oo saddexaad bay ahayd oo nabigu hor kacay calayhi salaatu wasalaam qisada afraad ali ibn abi talib baa warinaya gabadh yahuudiyada baa jirto iyaduna nabiga caay jirto aad iyo aad u duri jirtay nin muslina cunaha ku dhago u baqtiyay iyadana wuxuu ogaada taana indhigeedu hadur yahay qisada shanaad waxay ahayd gabadh baa nabiga cayday calayhi salaatu wasalaam kamid ahayd bulshadii waqtiga joogtay nabigu markaa wuxuu war gabadhaas way afxuntaa ayaa aamusinaya de waa cidii ciqaabta ka soo fulin lahayd buu isagu wakiisho u diraya waxa baxay Umayr ibn Adi asxaabiga la oran jiray sidii buu iyadana ku khaarajiyay nabigu waxa uu yiri لا ينتطح فيها عن الزاني يسهر دي ما يان لبا رياد لبا قبيلة لبا عيدوا كوضا هالليسا تالي جيدة ما تشيري اوغادا إني هدور تهاي داينو آيات كي أرقنين وحاديثي أرقنين قضاك استحاذين وسي قد بلهين وحوي إجماع الأمة أمة الإسلام ولي بسلف كودي هوري قول كود ميسان كلها مركا وحسكوا وافقان أن لقد دبتك جرين iyagu maxay ka yiraahdeen masaladan waxa ay isku waafaqeen ala kufri wa qatl man tanaqqasa min an-nabi sallallahu alayhi wasallam inuu gaaloobay dilna yeeshay
qofka hoos u dhiga ee xaqira ee caaya nabi maxamed calayhi salaatu waxa se xusid mudan runtii de qofkii marka uu arintan oo kale ku dhaco waa xeer ciqaabeed baa la marinaya xeer ciqaabeedkaasna de cidda mas'uuliinta ah ee xilka haysa iyo garsoorku waa in lagu soo oogo wixiina lagu qaado kiiska oo markaas lagu fuliyo sidaas waxaan ku joogsan karayaa hadii kale wuxuu noqonayaa wax runtii iska sii socdo ee dadku ay iska fudeydsadaan xukunkaasi aynu sheegnay wuxuu ku sugnaanayaa iqraar qofka uu qirto oo waxa uu sameeyay uu yiraahdo ku sugnaanaya ama shaahid lagu oogo ayuu ku sugnaanaya bacdina uu qirto ama shaahid lagu oogo xukunkaasi uu qabsanaya laakiin biduun iqraar وبدون الإشهاد سوى لغو مرخاتي فلو الحكم كان لغو فلين مايو حديبا قفك اللي ينادنا عدة فلين يساي وعيو وحاكمك عدة فلين يساي أفراد الأمة اللي يمو أقولا إنه إلى هذا قفك النبي يقول عاي أما إلهي يقول عاي وقورتان كقوية لما أقولتها لما أقولا وحال لو قولي وحوي وحال لو قد بينا حاكمك أيها لو قد بينا حاكمك أيها طلابك قاضية هدو حاكمك كفولينا واسيدة هديك لكن أفراد الأمة لما أقولا إن أيجو محي هيدي أنجا فلين أي لحظة وحكم كان لوجو فلين أو دينك هقفك أو واجب سنة ياي ودباته أيو كينين أي دبا نبي أي دباتيين أو عيو كل دباتيين ما هالدباته دعانوا معها عرب كل لسانكو واللمد بل وحبلا إلى جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان ورنكو وحين النبي له وجيسو داو أبويا دولين بويا شاوي سكوي ماده iskuma yimaado wixii carab uu geystaasay iskuma yimaado ilaahayna wuxuu yiri in alladina yuduuna allaha wa rasuulahu la'anahum allah fi dunya wal aakhirah kuwa ilaahay rasuulkiisa dhibaya ilaahay adduunyada iyo aakhirada wuu lacnaday walahum cadaabun alim cadaab adagna waa ay leeyihiin oo laga abaal marin doono maalinta qiyaamaha laga abaal marin doono waa cad lahum cadaaban muhiina cadaab ihaanayeen uu diyaariyay cadaabka ihaanayay cadaabka dunyada uu yiri laga jarayo cadaabka ukhrawigana waa u yahay maanta waxa badan gaalada wadamadooda joogta ay caayaan dadka islaamka nabi taala maxamed sallallahu alayhi wasallam ay caayaan ama tashwiic ay ku sameeyaan suuradiisa ay ku sameeyaan arintaasi waa arin foolxun waa arin dadka islaamku oo jeclaysanaya ma aha waa arin dadka islaamku dhibaysa waa arin dadka islaamku meel kasta joogan ay necab yihiin in nabigooda maxamed sallallahu alayhi wasallam alayhi aflagaado loo geysto oo ay loo geysto iyada oo haddana ay sidaasi ay tahay waxa la eegayaa wadanka ay degan yihiin wadan muslim ama aha oo ahkaamteenu ay ka socoto ma dad badan oo islaamiyeen uu ku nool yahay inta badan waxaanu aragnaa diinteena in xor ay ku tahay oo masaajidadii leeyihiin oo macaahidii leeyihiin oo madaariskii ay leeyihiin marka arintaasi hadiiba ay dhacdo sidii barihii dhowta dhacday dadka muslimiinta ee halka ku nooli inay ihtijaaj sameeyaan weeyaan oo dariiq silmi ah ay u gudbiyaan xukuumadahooda ay u gudbiyaan oo yiraahdaan ma ogolin caqiidadayada nabigayaga in la xumeeyo ma ogolin ay yiraahdaan ay dacwadiisa aan ka qaadaan laakiin ma banaana halka ay ku nool yihiin inuu afraad ka mid hoona intay dhaqaaqdo ay tiraahdo waxaan fulinaynaa dil baan fulinaynaa oo nabigayagii baa la ceebeeyay oo dil baan fulinaynaa ay yiraahdaan taasi waxay keenaysaa waa nafsado weyn bay keenaysaa waxaan la yiraahdaa dar'ul mafaasid awla min jalab al masalih shayga fasaadka oo la iska daboolo ayaa ka weyn shay masaalix oo la soo jiiday marka ninka oranaya isagoo wadan Europa jooga ama wadamo shay jooga waxaan u gargaarayaa nabigaan u gargaarayaa oo caydin caayay ayaan uga gargaarayaa waxaan ugu gargaarayaa cidii caydaba inuu qoorta ka gooyo arintaasi waa arrin qaldan weey waa arrin islaamka sumcadiisana xumaynaysa weey hadii culimada islaamka aan lahayna waliba anigu Cabdullaahi ahaan anigu aan sheeganayn ifta muftinimo aan sheeganayn laakiin muqallid لكن حسب النصوص الشرعية سيدي أن كفهمي ومبنانا ضدك المسلمين تا وضمضها قالوا dhexdooda ku nooli inay waxyaabo hadii gaaladu ay ku kacaan waxyaabo nabigeena ceebeenaya hadii ay ku kacaan inay inkiraan qalbiga ay ka inkiraan way leeyihiin lisaanka inay ka inkiraan way leeyihiin xukuumadahooda inay dacwada u gudbiyaan way leeyihiin caalamka islaamka kale inay soo sheegaan way leeyihiin si caalamka islaamka ee kale ixtijaajaad u sameeyo حتى عالم كإسلام كقالوا وحقوق عقابية هذي تاي إنه حرير كأجرة أي جاريسو حلبا كسارن لكن يجوا أفراد دي مسلمين تهال كان جوكتي
inay waxbaan laynanaa yidhaahdaan oo gaaladii nebigaygii bay caayeen waan laynanaa ay yidhaahdaan arrintaasi arrin bannaan maaha arrin suubanna maaha arrin islaamkana u keeni karaysa weeyi sumcad xumo u keeni karaysa dadka muslimiinta ahee ku noolna dhibaato u keenaysa cafiyo ilaahay markuu ciidda hoos maro ee mid kaloo lacaynaa jirtoonkuu cayimayaaye casiiska iyo malaa'igta iyo nebiga cayntiisa iyo boqorka iyo nebiga caydiisu waa cadho ilaahaye waana hadal cadaab lagu muto iyo meel cidhiidhiyahee carabku ha go-ee waa kufri aan cidi ka doodayne haddiinse aan bulshadu caawinaynuna cayaaraynin oo dowlad baa la cuskadaa lagu ciqaabayo macalool adaygeena waa ka cabsan la'ayne يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا